casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Diploma of Digital Photography. Kooraskaas oo lagu baran doono xirfadda sawir qaadista qaybaheeda kala duwan. Hadday tahay qaabka sawirada loo qaado, kamaradaha settingskooda sida loo saxo, iyo welibana sawiraantii la qaaday sidii loo hagaajin lahaa. Iyadoo lagu baran doono labada application ee kala ah Adobe Photoshop iyo Adobe Lightroom. Labada application ee lagu baran doono kooraskan akademiyada ayaa siin doonta ardayda iska soo diiwaan gelisa softwareadii oo bilaasha amba lacag la'aan ah oo watana karagoogi. Haddaba ciddii u diyaara amba danaynaysa kooraskan waxay la soo xidhiidhi doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بقولنتي أبون إيسكو سو نقد مركله صاحبيال 10 كينن maanta waxaynu ku baran doonaa qaabkee ayaynu fuulkii aynu qaadnay amba sawiradii cuntada ayaynu qaadnay qaabkee ayaynu edit gareynaynaa marka 10 kan baynu ku baran doonaa inaynu edit gareyno oo waxyaabo badan oo hoteelkii u baahan yahayna aynu soo sameeyno marka imika file baan tagayaa sawiraantaydii baan marka hore project aan ku soo geliyo aanu soo furanaya marka file markaan tago new baan ka dhex dooranaya haddii kale control iyo m baan qabanaya marka markay shaashada caynkan ii soo baxdo ee imika inoo soo baxday halkan waxaan gelin doonaa insha Allah dhararka ah 2100 halkan marka hore pixel baan ka dooranaya xaggan waxaan gelinayaa 2100 halkan kalena waxaan gelinayaa 1500 marka cabirkeed gelinayso idinku ikhtiyaar bad u leediin laakiin aanu tala ahaan waxaan idinku soo jeedin lahaa haddii aad maadaama kale halka 1500 geliso waa inaad tan kale ka hooseysa haydkeeda aad ku gelisaa waa inay 500 oo pixels dheeraadaan oo widthku dheeraada haydka marka 2000 iyo geliyay iyo 1500 create baan leeyahay oo aniga cabirkaygii goonida ahaaya idinku haddaad kaygan qaadataana waa good haddaydan qaadanna waa good laakiin mar walba 1500 widthka ka yareynin haydkana 1000 ha ka yareynin mar walbana hays dheeraadaan cabirka ah 500 oo pixel inta aynu halka ugu gudubno sawiraantii baynu soo qaadanaa haddaba file baan tagayaa haddana waxaan dooranayaa halka ay ku qorantay place embedded oo imika halkan file baan tagay place embedded baa ka soo dhex doortay kadibna halkan computerkaygii buu dhex keenay bartii ay sawiraantu ku jirtay ayaan soo furanayaa marka waa kan xaggan baan soo furtay marka sawiraantaydii cuntadu waa kuwan sad arkaysaan oo dhammaantood waan wada dooranayaa anigoo control u qabanaya haddii kale kolba midmid ayaan usoo dooranayaa oo place baan leeyahay marka hore kaa ii soo geli oo midii koowaad bii soo geliyey safe aan siinaya haddii kale waxaad samayn karaysaa intaad halkan normally aad u dul tagto ayaad dhammaantood soo qaadanaysaa ood hal mar sanoo kale u wada dooranaysaa adigoo control amba shift u qabanaya kadibna intaad soo wada qaadato ayaad applicationkaagii Photoshop ku soo dul furaysaa haddaba dhammaantood saxdan ka qaadaya anigoo bartan yar saxdan wada siinaya insha Allah marka imika afartaydii sawireen doonayay inaan soo gashado afartiiba imika way igu jiraan sad halkan ku arkaysaan layerkeena marka imika waad arkaysaan inaan sawiraantii soo gashaday oo sawir walba sawir buu dul yaalaa oo sad halkan ku arkaysaan marka haddaan doonno imika intaan dhammaantood ishan yar wada furno ishan yar waa itus oo ii aragsiisayn hore u soo barnay mar haddii aad ka qaado shaygii uu kaa qarinaya marka sawiraantii haddaynu imika meelo kala duwan dhigno way is wada dul yaalayaan midba haddaynu cirif dhigno imika tusaale kale oo saasoo kale idhaahno kaa hoose haddana qaado angle kaa dhig afartoodiiba ka marka mid walba imika qarino waynu dareemayna kan waynu qarinay qarintuna wax kale maaha ishan yar ka horeysa haddii aynu xidhno macnaa sawirka ayaan la arki weeyaan meeshii uu yaalaa laakiin la arki maayo way good haddaba sawiraanteena waxaan doonaynaa haddaba inaan nashqadayno marka horta markii waad sawirka ugu quruxda badan leh ayaan soo qaadanaya talo waa kee sawirka ugu quruxda badan leh san aanu qiimeeyay sawirkan ayaa ii noqday kii ugu quruxda badnaa marka kan marka hore waan iska xidhayaa kan baan doonayay inaan ugu sarreysiisto sawiraantayda inta kale oo dhan hoostaan marsanaya marka kan xaggan sare ayaan dhiganayaa si kolba nashqadaadu ay ku soo baxayso ayaad samaynaysaa marka imika halkan kan halkan dhigay waxaan samaynayaa kuwan kalena haddaba kan markan xagga sare dhigay kuwan kale saddexdan kale iga qari baan leeyahay kan ugu horeeya iga qari kaana iida hay kan ku xiga haddaba sawirka ku xiga soo saar waa kan haddaba sawirkan waxaan qabanayaa control iyo t si aan ugu sameeyo inaan goobo iyo u dhexgeliyo design yar ugu sameeyo control iyo t markaan qabtay laymankii yaraabuu ii soo saaray anigoo altahaya ayaan cidhifka hareerta ka istaagaya gacantaa yar ee labada dhinacay marka ii soo baxdo ayaan ku jiidaya aan yaraynaya marka sawirkayga imika markii koowaad sidaas uu noqday halkan ii soo dhig
sawirkan hadda waxaan soo furnayaa goobo oo xaggan yare rectangle-ku ii doornaa ayaan tan farta ku xajiyo ayaan eclipse tool ka soo dhex dooranaya kadibna anigoo shift u haya ayaan sawiraya shaygaygan waa imika shaygii koowaad baa ii sawirmay shaygaygan ii sawirmay halkan midabkiisa waxaan ka dooranaya inaan ka dhigo midabka casaanka halkan hareerahana waxaan u furaya wax loo yaqaano stroke oo godka labaad ee line ku jeexan yahay ayaa dooranaysaa midabkiisana waxaad ka dhigaysaa midabkiisana tusaale oo kale waxaan ka dhigayba casaan isagana kan gudahana casaanka iga bedel oo akhtar iga dhig insha Allah kadibna midabkayga casaanka kan ka doortay halkan yare ka horeyso waxaan ka dhigayaa waa hareeraha yar intuu ku leekaysiinayo ilaa 18 kaas oo kale gaarsiinaya waa iska soo xidhaya marka imika intaas aan sameeyay haddaba waxaan qabanayaa xarafkii alta markaan qabto amba selection toolka intaan doorto xagga ka ugu sareysa ee move toolka la yiraahdo intaan doorto move tool baa la yiraahdaa ka ugu sareeya intaan doorto ayaan alta qabanaya halkan markaan alta qabtay move toolkii soo doortay waxa ii sameysmay laba gamcood oo markii hore meesha maxaa ka jiray hal gacan oo kaliya tabahay laakiin markaan alta u qabtay muxuu sameeyay aysaa soo dul istaageen alta qabtay laba gamcood buu ka dhigaya oo shaygaygan marka hore uu qaadqaadayo kaliya alta markaan qabtana laba gamcood buu ka dhigayaa midna madowdahay midna caddahay kadibna altan anigoo haya ayaan jiidayaa tu labaad oo koobiyiga sameeyay kadibna markaan saa sameeyay aan haddana soo dul istaagay shaygaygii aan soo dul istaagay move toolkii altan soo qabanaya haddana waan soo kala jiidayaa oo shaygaygii waan si barbar dhigayaa sidii tii hore oo kale marka saddex koobi ayaan ka sameeyay imika saad arkaysaan oo isleeg saddexduba mid walba aan alta u qabtay haddii kale control iyo j intaad imika tan oo kale doorato ayaad control iyo j qabanaysaa markaad control iyo j qabato koobi buu ka sameeyay oo imika haddii aan kasoo dul qaado waa tan oo koobi buu iga sameeyay delete baan markaas siinaya marka saddexdii eclipse tool ayaan halkan kasoo dhex dooranaya kadibna waxaan siinayaa hal mar control iyo t saddexdoodiiba intaan halkan marka hore ka doorto saddexdoodiiba anoo taa dooranaya ayaan tan ku xigta dooranaya anoo control haya ta ku sii xigtaan dooranaya kadibna anoo saddexdiiba controlkii u haya ayaan control iyo t na qabanaya marka controlkii aan hayay unbaan t raacinaya markuu ii wada doorto waan soo qaadayaa halkan oo kale ayaan dhigaya waay waa good marka nashqadaydan ugala jeedaa waay waa si fiican haddaba sawirkaygan ayaan doonayaa halkan inaan ugu soo sarreysiyo nidhaa ka sarreysii waa kan sawirkii baan soo qaatay waay sawirkaygan waxaan leeyahay tan dhexda ii dhexgeli oo xaggaa dhexdoo kale ayaan dhex dhigay kadibna waxaan leeyahay tan dhex gelinaya ayaan halkan dul istaajinaya tan waa koobigii koowaad oo control t haddaan idhaahdo waa taa koornaha marka iyada waxaan leeyahay hoos u dhig oo tan hoos mari macnaa hoos marintan maxaan uga jeedaa bas weydiinaysaa in yar hoos marintan aan idin kala fahansiiyey halkan leeyarka imika shayba shaygu ka sarreeyo maxaan uga jeedaa shayba shaygu ka sarreeyo tusaaloo kale labadan sawir baan noo soo furay waan ugu soo sarreysiiyey labadan sawir waan ugu soo sarreysiyey amba labadan sawir aad bay waaweyn yihiin aan hoostoodii iska dayno oo aynu qarino kan kalena aynu ishiisan yar soo xidhno insha allah kan kii kale aynu xidhnay kan waa kan sawirkii kale horta shaygan kale sarreysiinta anoo idin fahansiinaya halkan waxaan kasoo dhex doortay rectangle tool ee halkan layerka ayaan joogaa rectangle tool baan soo doortay marka imika halkan haddii aan rectangle-kaygan ku sawiro midabkiisana aan ka dhigo madowga aan ugu daayo haddana mar labaad aan rectangle-kaygii doorto oon rectangle kale oo dhinacaa u dheer aan soo furto midabkiisiina aan ka dhigo shayga loo yaqaano akhtarkaasoo kale aan ka dhigo haddana ku saddexaad aan soo furto oon isaga sidaa ka dhigo ku sidaa u yaalla aan ka dhigo midabkiisi isagana aan ka dhigo soosani saddex shay baan soo furtay markaa shay walba marka koowaad waxaa la arkaya shayga ugu sarreeya maxaan uga jeedaa sarreyntan halkan saddexdoodiiba waa kuwan inoogu jiro ad arkaysaan casaankii akhtarkii iyo madowgii markaa iminka kii madoobaa saydun arkaysaan haddii aynu move toolka soo qaadano kan akhtarkaa ka sarreeya oo hareertaa iminka akhtarka aan dhigay la arki maayo kii madoobaa haddii aan kan intaan doorto control iyo t idhaahdo oon ku wada jiido kaa madow dee waxaad arkaysaa inaan kii madoobaa la arkayn guud ahaan laakiin haddaan kan cas doorto oon isagana sidaa kadaalik aan control iyo t idhaahdo oon ku wada jiido kan akhtarkaa dee kan akhtarkii meesha wuu iska qarinaya talow arrintaa isqarintu maxay tahay oo iminka kan casaanka haddaan ugu hooseysiiyo oo nidhaa macalaaka madow ka hooseysii dee la arki maayo haddii kan madow aan ugu sarreysiiyana kan madow baa ugu wada sarreynaya malaha iminkoodii la yara fahanteen baan u malaynaya shayba shaygu halkan kaga sarreeyo ayuunbaa halkan laga arkaya inuu ka sarreyntiisa markaa saddexdoodan kan qariyaa iminka meeshuu ka qarsoomaya amba ha ugu hooseeya amba ha ugu dambeeyo haddaan kaa qariyana kii kale casaana meeshuu ka baxay haddaan kan akhtar kaa qariyana labadii kale way joogaan oo isagii baa qarsoomay markaa saddexdoodan ii door delete baan siinaya kadaalik waxaa la mida sidaasoo kale waxaa la mida saddexdan idan eclipse tool
marka saddexdeedan eclipse tool si aad u kala garataan kan waxaan ku qorayaa number 1 kan waxaan ku qorayaa number 1 oo intaan doorto ayaan halkan ka soo dhex dooran doonaa rename amba haddii aad halkan ka weydo rename inta badan halkan ma soo dhigo renameka haddaba waxaan samaynayaa inaan rename idhaahdo anigoo double click u siinaya kadibna 1 baan ku qorayaa kadibna kan labaadna waxaan ku qorayaa intaan doorto 2 kan saddexaadna waxaan ku qorayaa intaan doorto double click siiyo 3 amba 3 caadiyan ku qorayaa waayahay waa good kadibna imika saad arkaysaa 1 2 iyo 3 baan ku kala qor sidaas oo kale doonay inuu kaasi noqdo ka koowaad oo imika kan waa kii saddexaad marka hareertan ka soo rarban leeyahay oo hareertan dhig oo kaana hareertaagay waayahay kana hareertan dhig imika kii koowaad baan dooranay waa inuu kan noqdaa kan waa kii labaad walibana isagana koornahan kan mari waayahay saddexdeedii shay waa kuwan oo idin arkaysaa imika ka koowaad imika haddii aan doorto ka number 1 ay ku qoran tahay waa ka ii koowaad oo imika kan 1 intaan halkaa ka doorto haddaan control iyo t idhaahdo kii koowaad bay isa saartay kan labaad haddii aan doortana waa kaygan labaade oo control iyo t idhaahdana kan weeyaan kan saddexaad haddii aan doortana oo control iyo t idhaahdana waa sawirkayga saddexaad hadda saa imika meyle fahanteen oo mayla socotaan waayahay mid walba saddexdii goobo mid walba magac gooniyaan u bixinay haddaba kan koowaad waxaan doonayaa inaan sawirkan koowaad geliyo sawirkii baan soo qaatay sawirku waa kan ugu sarreeya markaa koowaad baan dul dhigaya oo waa inuu shay walba sawirkaad gelinaysaa waa inay isdul yaallaan oo kan sawirkii iyo shaygii waa inay halkan layerka isdul yaallaan kadibna waad soo qaadaysaa halkan baad soo dul dhigaysaa intaa wadi la socotaa maan filaya control iyo t baan odhanayaa in yar baan weyneynayaa sawirkaygii intaan goobada leekaysiinayo kadibna imika sawirkii waan yaro weyneeyey waan leekaysiiyey saxii baan ka qaadaya xaggan imika markaan joogo ee sawirkaygii shaygii way dul yaalla oo goobadii way taallaa meeshii kamay tegin sawirkayga intaan xaggan dul istaago ayaan xarafka alta qabanaya anoo xarafka alta haya labadooda xagga u dhaxaysa soo istaagaya marka hore waa gacan laakiin dhexdooda markaad soo istaagto adigoo alta haya gacantaa yar baa kuu soo baxaysa amba shaygaa yar ee rectangle-ka doonaya in la dhex geliyo hal mar baan click siinaya normal clickti muxuu sameeyey sawirkii wuxuu dhex geliyey goobadii imika sawirkayga haddaan doorto ilaa control iyo t waan ku dhex wadwadi karayaa goobada gudaheedii anoon midabka akhtarkaa muujinayn oo sidii aan doono ayaan ugu muujin karaya kasaasaan ku daynaya saxdii baan saaraya haddana labadoodan waan wada dooranaya intaa imika rectangle-kii sare ay dooran kan hoosena anoo control u hayaan labadoodii wada dooranaya kadibna control iyo g baan qabanaya maxaan ka dhigay group kadibna groupka waxaan leeyahay sawir 1 amba s1 baan leeyahay amba s45 baan leeyahay si aan ugu garto adu macna haddana sawirkaygan kala soo qaadanaya kan ahaa waxaan leeyahay sawirkaygan imika aan soo furtay ee kan ahaa goobada labaad baan dhex gelinaya kor u soo qaad waa kan sawirkaygii control iyo t baan leeyahay oo yareeya alta anigoo hayaan hareertii ka istaagay waan soo yareeyey waan soo duldhigay goobadaydii haddaba goobadaydii tuugii markaan soo duldhigay een xaggan soo istaagay xarafkii waxaan qabanayaa alta marka shaygii yaraa ay soo baxayna dhex geli baan leeyahay labadoodiiba waan dooranayaa control iyo g baan leeyahay markaas shaygaana sidaas ayaan ku dhameeyey waayahay kii labaad baan soo qaadanayaa sawirkaygii saddexaad sawirkayga saddexaad waan soo kormarinayaa oo xaggan oo kale ayaan soo dhigaya kadibna waxaan leeyahay marka koowaad control iyo t cabirkiisaan yaraynayaa anigoo altow haya markaan yareeyey kadibna sawirkii imika markaan yareeyey saddexaad waa soo qaaday waan dul dhigayaa halkan baan imanaya layerkii baan imanaya meeshan la imanaya waa layerkii haddii layerkan uu idinka qarsoon yahay hadhow tole meel kale ka daydayna windows taga halkan kasoo dhex doorta layer wataagta ay ku qorantay haddii kale keyboardkaaga waxaad qabataan F7 tay ku qorantay kadibna tuugii sawirkaygii baan dul istaagay oo kan imika waa sawirkaygii kanna waa layerkayga hoose marka kan waa layerkii oo goobadiya kanna waa sawirkan dul istaagaya altaan qabanaya waan dhex gelinaya kadibna markaan dhex geliyo waan dooranayaa control t baan qabanaya in yar baan hareertan u jiidaya oo waa ka saxii baan ka qaadaya marka saddexdeedii shayba waan dhameeyey kanun baan groupkii hadhay oo control t aan leeyahay marka saddex group ayaan imika sameeyey oo haddaan doono magacyada waan ka bedeli doonaa laakiin saddexdeedan groupna hal mar baan wada dooranayaa group kalan ka sii wada dhigaya marka sidaas ayaan intaa u nashqaday waayahay haddaba waxaan doonayaa kambanigaygan amba hodheelkan aan u shaqaynayay magaciisii iyo loogadiisii inaan soo geliyo marka idinka imtixaanka marka la idinka qaadayo hodheel baa magaciisa la idin siin doonaa oo lagu odhan doonaa hodheel hebel saddexdaas sawir qaad oo ilaa 4 sawir baa la idin siin doonaa 4tan imika aynu ku shaqaynaynaya kadibna waxaa la idin odhan doonaa hodheel hebel u soo samee marka anu imika waxaan kusii qorayaa tusaale
hudheelkii magaciisii kuma qorayo laakiin imika waxaan ku qorayaa anu shaygaygan sawiraantaydan aynu qaadnay inaan ku qoro magaca restaurant name baan ku qoraya laakiin adoo hadhow tole magaca hudheelka lagu siiyo imtixaanka marka laga qaadayo ayaad ku qori doontaa way halkan baan dhigaya halkan waxaan ku qorayaa restaurant name marka restaurant name baan ku qoray halkan fartaydii baan ka soo dooranaya noocii ay noqonaysay marka imika tusaale kale saasaan u doortay marka adiga ikhtiyaarka iska leh farta nooca doonayso inaad u doorato marka adiga dhinacaas taas ikhtiyaarkaaga tahay marka anu fartaydii waa taa waan yareeyay cabirkeedii halkan baan ka soo dhex dooranaya shayga oo loo yaqaano san horeydii ku sheegay character marka fa-gaysan isku soo kay dhaweey baan idhi fartu intay isku jirayso oo halkan baa wax laga habaya fartu intay kala fidsanaanayso haddaad doonayso haddii doonayso intay isku soo dhawaanayso waxaan oo dhan halkan baad ka hagaajinaysaa farta ma waxaad doonaysaa inay far waaweyn noqoto waxoo dhan halkan baad ka saxaysaa markaas move toolkii baan soo qaadanaya koornahaasaan dhigayaa midabkeedana waxaan ka dhigayaa halkan anigoo soo dooranaya midabka caddaanka okay baan siinaya marka idinka hadhow tole macala waxaa laydinka rabaa hudheelka inaad basic loogo u samaysaan laakiin wax looga hudheelka u samayn maysaan oo loogo aynu soo qaadan doonno imika loogadan aan soo gelinayo kale ayaad internetka ka soo qaadan doontaan oo xaggan inta internetkaygi haddaan imika tago oon xaggan ku qoro restaurant icon oo kale restaurant icon marka imika restaurant icon baan idhi haddaan searching gareeyo oon xaggan images aan tago inta restaurant iconkaygii aan ku qoray haddana images aan tago amba xaggan aan idhaa raaciyo restaurant amba restaurant icon imika wixii soo dhigaya money icons searchingkan aan google-ka ku sameeyo kaliyaata marka iconskii soo dhigaya baan sugayaa oo xaggan waxaad raacin doontaa hadhow tole png marka png markaad raaciso wax backgroundna ma laha oo tusaalo kale imika kale halkan waxyaabo badan buu inoo soo dhigay weli waxaan oo dhan aanu kumaan qancin tii aad ku qanacdaan baad idinku soo duldhigi doontaan laakiin anu imika weli intan midna kumaan qancin waxaan raacinayaa png oo imika png baan raaciyey search baan leeyahay mar labaad kadibna imika halkan buu isoo dhigayaa dhammaantood oo png wadaa marka waan sugayaa ilaa intaan ku qanacayo logo aan ku qanacayo amba icon aan ku qanacayo intuu isoo dhigayo waayahay intan midna waan ku qanci waayay anu haddaan doono halkan waxaan ku qorinayaa logo oo waxaan leeyahay restaurant logo kale igu qor kadibna png baan idhi kadibna imikuu isoo dhigaya insha allah aduu dee kolba sidii aad u heli karaysaan baan u helayaa marka anu tan baan qaadanaya imika ay ku qorantahay restaurant logo oo sawirka caynkaasoo kale ah ayaan qaadanaya anu ninkaa bileelka sidaa markaad isagiyo png kuusoo dhigo oo wax background oo dambe lahayn marka idinku waxaan o dhan kii aad jeclaataan baad qaadan karaysaan maaha khasab inaad raacdaan aniga marka right click baad leedahay save as image baad leedahay marka tallaabooyinkaas maad raacaysaan desktopkaygii baan tegey waxaan ku qortay j save baan idhi marka imika photoshopkaygii markaan joogo haddaan file intaan tago aan idhaahdo place embanded oon desktopkii tago oo xaggan desktopkaygii aan ka tago oon ka dhex raadiyo sawirkii aan soo save gareeyey ee j-ga ahaa waa kaa waan soo furtay loogadii markaa imika waasan saxa ka qaad baan leeyahay kadibna control iyo t baan leeyahay waan yaraynaya anigoo altow qabanaya hareertan hoosena waan soo dhigaya marka mar walba loogada idin soo qaadataan hareertaasa idin dhigi doontaan hadhow tole imtixaanka inta badan sawirada loogada hareertaasaa laga dhigaa marka ikhtiyaar wood u leedihin inaad hareertaa kalena ka dhigataan xagganna waxaad dhigi doontaan social media iconski imika intan hadda markaan saa idhi magacii baan dooran doonaa magacaygiioo kana anigoo dul taagan ayaan alta qaban doonaa labadii gamcood markuu soo saaray waan soo jiidayaa xaggan baan keenayaa waan dooranaya marka imika waxba kama arkayo waa caddaan meeshaan dhigayna waa caddaan waan dooranayaa midabkeeda waxaan ka dhigayaa buluukigan oo kale amba midabkii aad adinku jeclaataan restaurant name baan idhi farteedana waxaan ka dhigayaa small inay noqoto amba italic oo kale inay noqoto ayaan xaggan kasoo dhex dooranaya marka farta noocaad ka dhigaysaan iyo waxaasoo dhan idinka ayaa ikhtiyaarka u leh marka waan soo qaadayaa hareertan baasaan uga soo yaro durkinaya marka 3 social media ayaan doonaya inaan soo geliyo magacyadoodii oo kale marka xaggan imika haddaan tago instagramkii waan hayaa oo sidoo kale waxaan hayaa facebookgaygii imika oo kale ma hayo facebookyo sawiro ka hadlayo oo kale marka insha allah waxaan sameynaya inaan internetka kasoo dejistaba amba haddii aan xaggan desktopkayga ka eegto kale social media icons ma hayo marka imika haddaan xaggan internetka ku noqdo oon ku qoro social media icons oo png-ga waan iska daysanaya marka imika social mediahaygii markaan ku qoray halkan social media png markaa sawiraan badan buu isoo dhigay kanoo kalena aanu iska soo qaadanaya idinku kii aad ka heshaan ayaad soo qaadan doontaan insha allah maaha khasabkaan qaatay inaad iga soo daba qaadataan laakiin keliyata waxa weeyaan shay sidan oo kale ah baa laydinka baahan inaad social media una soo qaataan marka right click baan leeyahay save as image baan leeyahay wuxuu igu save gareynaya barta pictureska ma igu save gareynaya photoshopkaygii soo fur file tag waxaad tidhahdaa place embanded kadibna waxaan halkan kasoo dhex tagay pictures
kadibna iconiskaygii waa kuwan oo sawirka ma soo doortay kadibna place baan doortay marka sawirkii aan soo doortay waa kan altaan qabanaya waan yareynayaa saxaas marka imika shaygaygii marka soo doortay waan sii yareynaya haddaan doonayo oo waa ka oo shaygaygii saasoo kale aan ka dhigaya markaan yareeyay baa saxii ka qaadaya hareerta maasan oo kale soo dhigay haddii kale waxaan sameynaya inay shay amba midmid aan u soo qaato oo imika kale halkan internetka markaan joogay haddii aan halkan ku qori lahaa social media aan ku qoray Facebook oo kale Facebook oo marka hore Facebook soo qaadan lahaa Facebook png waa kan Facebook buu siiyay oo kan baa ugu horeynayo Facebook-giya marka midmid baad u soo qaadan karaysaa haddaad doonaysidna jamaaci baad u soo qaadan karaysaa kan save as baan idhi oo uu save gareeyay kii koowaad haddana halkan waxaad ku qoraysaa Instagram oo markaa mid baad u wadaysaa amba waxaad odhanaysaa YouTube oo kale YouTube marka midmid in loo waday noqonaysaa oo shay walba markiisa gooni loo soo qaado oo kale haddana kana waa kan amba xaggan oo kale ayaan leeyahay calaamadan oo kale soo qaad haye haddana Instagram-kii marka kolba mid baad soo qaadan karaysaa haddii imika kan aan ka saaro sawirkan imika aynu soo qaadanay social media-na waa kan oo delete garayno oo nidhaahno xaggan ii soo fur oo nidhaahdo pictureskaygana ii dhex tag oo saddexdeedan shay ii soo qaad Instagram-kii iyo Facebook-kii midka goonida aan u soo qaatay ii soo jiid Photoshop-kaygana igu soo dhex kici marka mid walba aan sixi ka qaado waa kuwan marka Instagram-kan haddii aan Ctrl+T yidhaahdo oo nidhaahdo ii yaree marka mid walba ood yareynaysaa haddana YouTube-kii Ctrl+T kan imika ii dooran waa Instagram-kaygii YouTube-kii gal Ctrl+T dhe altow qabo adoo hareerta ka istaagaya yaree soo qaado haddana hareertaan saasoo kale u dhigdhe oo aad u sii yaree waayahay Facebook haddana Facebook-gayga maan insha Allah dooranayaa kadibna isagina Ctrl+T baan qabanayaa waan yareynayaa anigoo altow haya marka mid walba waan naqnaysiinayaa waan soo jiidayaa hareerta maan dhigayaa YouTube-kaygii soo qaad baan haddana leeyahay kan intaad saxii ka qaado YouTube-kaygani dooro ii soo barbardhig haddana Instagram-kaygani soo qaad adoo Ctrl+T qabanaya ayaad haddana altadii qabanaysaa hareertii istaagaysaa waad yareynaysaa marka mid walba ood soo dhigaysaa oo saasoo kale ayaad isku soo barbardhigaysaa marka waliba Facebook-gan imika uu inaga khaldan yahay isagii gooba inaynu soo qaadanay markii halkan aynu joognay marka tu gooba baynu soo qaadanaa saa kuwan oo kale ay laga rabaa inaad ku gooba soo qaato si sawiraanta kale uu la mid noqdo marka tan oo kale haddana idhaa save as image on save gareeyo on haddana halkaygan tago on file idhaahdo on idhaahdo place embedded on xaggan kasii dhex doorto on place idhaahdo oo waa kaa shaygaygii soo dhigay on yareeyon alta qabto waan yareeyey halkaasaan dhigay marka Facebook-gaygan horaan dooranayaa delete baan siinayaa ama cancel Facebook-gaygan baa imika ii dooran Facebook-gaygii hore waa waa iska delete gareeyay kaygan kale aan soo jiidanayaa halkan baan dhigayaa marka waa kaa shaygii sawiraantii kale ayuu la mid noqday oo saasoo kale ayaynu dhignay waayahay waa good marka anu imika saddex social media baan halkan dhigay saad arkaysaan laakiin idinka waxaa laydinka rabaa dhammaan social media inaad soo wada dhigtaan ilaa 5 social media imtixaanka laydinka rabaa inaad dhigtaan marka saddexdeedii social media waa kuwa saddexdeedii social media halkan yaala Ctrl+T baan leeyahay marka halkan waxaan ku qorayaa iyagana social media haddaba imtixaanka waxa idin dheer marka la idin dhaahdo food photography ka soo shaqeeya waxa idin dheer inaad halka dhexda aad ku qorayso magacaagi oo inta xarafkii T soo furato ayaad bartan dhigaysaa wuxuu qof walba ku qorayaa magaciisa oo saddexan oo imika kale aanu Axmed Cabdi Maxamed baan ku qoray oo arday walba si imtixaanka loo gartay inuu isagu uga soo shaqeeyo marka afartu doonaha ka dhigo halka magaciisa iyo numberkiisa isla socda oo intuu slash yar geliyo ayuu numberkiisa halka ku qorayaa eber 6 3 saasoo kale uu qorayaa 5 2 5 3 4 saasoo qorayaa numberkiisa qofkii aan laakiin halka numberkiisa ku soo qorin macalayaan laga dhaxarkin haddii la doono midabku ma aha muhiim aad u dooranaysaa imika tayada sif kaleera looma arkayo ma aha muhiim kaliya inaad magacaaga ku soo qortun baa muhiima annagu markaa sidii aanu arkayno marka la saxayo ha loo soo arko laakiin halkaa waxa uu muhiima inaad numberkaaga ku soo qorto laakiin imika aanu design-kan idin barayo iyo hadhow tole dadka u samayn doontaan aad food photography-ga u qaadeen iyo hodheelada hadhow tole soo dhex gelinaysaan laakiin imtixaanka uun weeyaan ujeedadiisu marka maanta casharkeenan waxaynu ku samaynay design-kan hortiina inooga muuqda in sawiraantii cuntada aynu qaadnay imikana aynu design-kiinii samaynay inta ayaan ka badan bokorskan waynu ku baran doonaa walow casharkeenan maanta bilow ahaa aadna ugu dheeraa oo muddo badan oo ilaa 30 mirir iyo gaadhisa uu socday waa aniga oo idin leeyahay intaynu casharkan cashar la mid ah isugu iman doono ismaqal aragti dambe oo xiiso badan